kulanti wacan wanaagsan daawadayaal halkan waa warsan news waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay Soomaalida ee caalamka qaybtana waxaynu ku eegi doonaa baahinteena habeenimo hadii ay buweyno uu idma taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 11 bisha afraad Abriil 2026 qodobada aan isdul taagi doonana waxa ka mid noqon doona Mareykanka oo qaaday tallaabo aad uga farxisay Somaliland waxa uu fuliyay laba shuruudood oo kol hore uu u ballan qaaday maxay yihiin labadaasi qodob ee uu Mareykanka ballan qaaday ee xilligan uu fulinayo maxaase ka jira in Mareykanka uu qaaday tallaabo dhaawacaysa xiriirka Soomaaliya iyo sidoo kale Mareykanka wararkii ugu dambeeyay ee ku qotoma tallaabadan sida weyn ay ugu riyaaqeen shacbiga Somaliland iyo guushan oo lafdhabar uu noqday Cabdiraxmaan Ciro ayaan halkan idinku wadaagi doonaa wax kale oo aan qaybtan ku eegi doonaa Soomaaliya bandhig military ay maalinta bariyaha sameyn doontaa xagee ayaa lagu qaban doonaa maxaa xilligan ku soo beegay bandhigan military wararkii ugu dambeysay ee ku saabsan ayaan halkan idinku soo gudbin doonaa wax kale oo aan qaybtan ku eegi doonaa hadii ay buweyno idmo qaybna ka noqon doona warkeena inta aynu ku guda jirno baahinteena wixii warar ah oo degdeg ah ay soo kordha iyo macluumaadka ugu dambeeya ee caalamka soo dhawaada saaxiibayaal muuqaalkana meel fog gaarsiin aragtidiina qaybta faalada ama commenti kaga soo dhiibta hadii aad markii kugu horeyso muuqaalkeena ku soo gaaran ay tahayna sharaf ay inoo tahay nagu soo biir si aad mar walba halkan uga hesho warar warbixino muuqaalo aynu hadii jeer halkan aynu ku soo baahino rukumo qaybta gambaleelka oo furo subscribe saaro oo kuna soo biir oo xaqiiji channelka warsan news kan ku bilaabo dawladda Mareykanka ayaa qaaday tallaabo si weyn uga farxisay Somaliland waxaana ay fuliyeen laba shuruudood oo kol hore ay soo bandhigeen in Mareykanka ay fulin doonaan oo dhowr jeer hore jawaabo laga sugayay isla markaana imikan ay si toos ah u soo bidhaamisay dawladda Mareykanka waxaana la rumaysan yahay in tallaabada ay qaadeen Mareykanka ay si weyn u dhaawici doonto xiriirka tooska ah ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo sidoo kale Mareykanka waxaana ay tani u gogol xaaraysaa in Mareykanka uu ku dhiirado inuu si toos ah ugu dhawaaqo aqoonsiga Somaliland macluumaadka ayaa xaqiijinaya in dawladda Mareykanka oo kol hore u ballan qaaday dhinaca Somaliland inay u fulin doonto laba qodob oo kala ah in baasaboorka Somaliland si toos ah oo fiisa la'aan loogu tagi karo dalka Mareykanka oo fulinteeda imikan ay si toos ah u bilaabatay qaar ka mid ah muwaadiniinta Somaliland ayaana ku safray baasaboorkaas oo ku tagay dalka Mareykanka sida ay xaqiijinayaan muuqaalo ay iska soo duubeen wax kale oo dawladda Mareykanka ay si toos ah ay u fulinaysaa qodobka kale ee la xiriira in xafiis ay ka furato magaalada Hargeysa ee caasimada u ah Somaliland halka Somaliland loo ogolaaday in ay xafiis ka furato dhinaca Washington tani oo sahli doonta sida macluumaadka ay sheegayaan in Mareykanka uu sii kordhiyo xiriirkiisa tooska ah ee uu leeyahay Somaliland waxayna keeni doontaa dhabo ay Mareykanka ku dhiiran karto inay si toos ah ay ictiraafka u siiso Somaliland waxa ay u muuqanaysaa in Mareykanka uu xaarayo dhabbihii sida tooska ah ee uu ku wanaajin lahaa xiriirka dhinaca Somaliland una kasban lahaa kalsoonida madaxda Somaliland iyo shacbigooda waxna dawladda Mareykanka ay u qaadaysaa tallaabadan sida ilaha diblomaasiyadeed ay xaqiijinayaan gaarista yoolkeeda ku qotoma ee dhinaca Somaliland iyo helista saldhigga military ay ka doonayso dhinaca Berbera oo la rumaysan yahay in Mareykanka waqti badan uu imikan gelinayo macluumaadka ayaa xaqiijinaya in dawladda Mareykanka ay guud ahaan ay u diiday fiisihii dalku galka muwaadiniinta Soomaaliyeed iyadoo oo si toos ah ay arintan u sheegtay in ay uga gon leedahay in ay hakiso soo galootiga tirada badan waxaase fursad kale oo dhinaca kale ah loo siiyay dhinaca Somaliland oo markan u muuqanaysa in baasaboorkeeda uu noqonayo mid si toos ah loogu tagayo dalka Mareykanka ilaha muhiimka ah ee xogtan baahiya ayaa xaqiijinaya in dawladda Mareykanka ay hoos u dhigtay kol hore cadaadisadii dhinaca diblomaasiyadda oo ay saareysay Somaliland una soo wicisay dhinaca Soomaaliya oo markan ay u muuqato in ay tani keeni karto in xiriirka tooska ah ee Soomaaliya iyo Mareykanka uu mudmadu soo kala dhaxgalo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald J. Trump ayaa kol hore xubno ka mid ah la taliyaashiisa ugu baaqeen in uu dib u eego xiriirka uu la leeyahay Somaliland iyo in uu miiska soo saaro uu qalinka ku duugo aqoonsiga Somaliland oo dhowr jeer hore lagu la taliyay waxa dib u dhac uu arintan ka sameeyay kadib markan ay u muuqanaysaa in Trump uu ku dhiiranayo inuu si toos ah u soo abaaro oo indhaha caalamka ku soo jeediyo dhinaca Somaliland Trump ayaa dhowr jeer hore fagaarayaal isagoo ka hadlaya hadallo gaf ku ah
madax banaanida iyo qarannimada Soomaaliya ka jeediyay wuxuuna ku micneeyay in Soomaaliya aysan ka jirin dawlad iyo booliis midna oo dhowr jeer hore fagaarayaal uu ka weeraray. waxaase jirta in dawladda Mareykanka ay hoos u dhigtay marka la eego kaalmadeedii tooska ahayd ee ay siin jirtay dawladda federaalka ee Soomaaliya sabab la xiriira in Mareykanka uu sheegay inuu dib u eegis ku sameyn doono xiriirada qaar ka mid ah dalalka caalamka ee sida bahalnimada leh ay u saameeyeen kooxaha argagixisada uu sheegay inay si toos ah Mareykanka uga baaraan degayso in ay la macaamisho. Sixta Mareykanka ayaana cadaadiskii ugu badnaa saaray muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool dalka Mareykanka tan iyo markii dawladda Mareykanka uu doorashadii ka dhacday dalkaasi uu ku guuleystay xilka madaxweynaha dalkaasi Donald J. Trump ayaa waxa uu sheegay in guud ahaan dalkiisa uu ka sifeyn doono soo galootiga gaar ahaan kuwa Afrikaanta oo ku jiraan Soomaalida. waxaa la rumaysay in nacaybka gaarka ah ee Soomaalida u qaaday ay sababteeda lahayd gabadha ku matasha Soomaalida senatarka ama aqalka cad ee Mareykanka Ilhan Umar oo dhowr jeer hore ololihii campaign-ka ku dhex weerartay sidoo kalena isagana weeraray oo cadaabad xun labadoodaba ay ka dhaxayso ay sabab u noqotay in dawladda Mareykanka ay tallaabooyinka aan ka fiirsiga lahayn ee ka dhanka ah muwaadiniinta Soomaaliyeed ee qaadaan. dawladda Mareykanka ayaa markan si toos ah waxa ay ugu dhardhiganaysaa sida macluumaadka ay xaqiijinayaan inay qaado dhabaha gaarista danaheeda gaarka ah. waxaana dhinaca Somaliland la tilmaamayaa in tani ay guul muhiim ah ay u tahay waxaase la xaqiijiyay mid ka mid ah hadafadiisii dhinaca iyo campaign-kiisii doorashada uu ku soo galay madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro in uu si weyn uu markan uga dhabeynayo waxaana Ciro uu noqonayaa madaxweynihii ugu horeeyay ee si dhab ah u wajaha ictiraafka caalamiga ah Somaliland ay hesho wuxuuna u qaaday dhab kala duwan oo diblomaasiyadeed isaga oo kaashanaya qubaro dhinaca diblomaasiyadda iyo siyaasadda ku takhasusay. Cabdiraxmaan Ciro ayaana guulo muhiim ah ayaa waxa uu ka keenay dadaaladiisii dhinaca diblomaasiyadda marka la eego dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay ee uu sameeyay marka la eego dhinaca ictiraaf raadinta ah ee Somaliland dalal dhowr ah oo caalamka ayuuna fariimo isku mid ah u diray halka kuwa qaarkoodna uu si toos ah uu ugu safray kuwa kalena xiriir toos ah ayuu ka helay muddooyinkii ugu dambeysayna waxa sii kordhayay dalalka daneynaya in xiriirka tooska ah ay la sameeyaan Somaliland tan iyo markii uu qarxay dagaalka bariga dhexe oo banaanka keenay muhiimadda ama ahmiyadda istiraatiijiyad ee ay leedahay Somaliland. Sixtaba haatee Somaliland markan waxa hor yaala fursado muhiim ah oo ay tahay in si degan loo wajaho oo laga faa'iideysto sida ay ku doodayaan dadka faaqida ama u dhunduleela arrimaha siyaasadda dunida oo tilmaamaya in ay tahay in si degan loo wajaho isla markaana laga faa'iideysto fursadahan oo imikan noqonaya kuwii ugu horeeyay ee si toos ah Somaliland u hor yimaada. Somaliland 35 sano ayay dunida ka baadagoobaysaa ictiraaf caalami ah waxay soo muuqataa in sanadkan ay u dabaaldegi doonto 18 bisha May ee soo aadan guulo diblomaasiyadeed oo waaweyn ah tan iyo markii ay Israa'iil ku dhawaaqday inay aqoonsi siisay Somaliland waxa isa soo tariyay dalalka kale ee daneynaya inay ku dhiiradaan arintaasi oo culays siyaasadeed oo dhinaca diblomaasiyadda si weyn ula kulmaya waxaana qaar ka mid ah dalalka Afrika iyana qorshaha ugu jira in si dhow ugu dhawaaqaan aqoonsiga Somaliland. markan hadii aynu eegnana magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya maalinta bariya wax lagu qaban doona bandhig military ugu xooganaa ee abid ee Soomaaliya ay sameeyso tan iyo burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya waxaana la filayaa in bandhigan ay ka soo muuqdaan gaadiidka nooca casriga ah ee dagaalka diyaarada nooca dagaalka ah iyo sidoo kale hubka nooca casriga ah ee dunida imikana isticmaasho dhammaan soo bandhigada agabkan military iyo dhowlatuskan military ee Soomaaliya waxay ku soo aadaysaa xilli maalinta bari ciidamada militariga dalka ay u dabaaldegayaan sanad guuradii ka soo wareegatay aasaaskooda waxaana ay u muuqataa in Soomaaliya markan cudud ciidan oo ay ku cabsi gelinayso dalalka caalamka ay si toos ah u soo bandhigayso. dawladda federaalka Soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeysay waday abaabulka bandhigan iyadoo oo ay goobjoog ka noqon doonaan fagaarahan madaxda qaranka oo si toos ah u daawan doonto iyadoo warbaahinta
qaybaha kala duwanna ay si toos ah u baahin doonaan muuqaalada iyo dhowlatuska ciidanka militariga ah ee Soomaaliya ee maalinta berri ah ee xuskooda ka dhici doona magaalada Muqdisho. Si kastaba ha ahaatee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sanadihii ugu dambeysay dadaal badan ku bixinaysay ka maarmidda ciidamada shisheeye ee nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya, waxaana dowladdu ay dhowr jeer hore caalamka fagaarayaasha ka sheegtay in ay ciidankeeda dib u kabasho ay ku jiraan. tani waxay soo muujin doontaa in ay Soomaaliya cudud ciidan oo xoogan ay heshay. waxaa markii ugu horeysay diyaaradaha nooca dagaalka F-16 Attack 129 iyo Akinji ay kasoo muuqan doonaan fagaaraha bandhiga ciidanka militariga Soomaaliya, waxaana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu bixin doonaa amarro culus oo ku wajahan dagaalka kooxda Al-Shabaab iyo in si toos ah loogu dhaqaaqo goobaha ay kooxda argagixisada imikan ay ku sugan yihiin oo ay dowladda federaalka Soomaaliya dadaal badan ku bixinayso sidii gacantooda looga saari lahaa. macluumaadka soo taraya ayaa sheegaya in dowladda ay imikan ay si toos ah taageero lixaad leh uga heshay saaxiibadeeda caalamiga ah, waxayna sahashay in ay si degdeg ah u soo kabtaan oo ay muujiyaan bandhigan xoogan oo imikan u ah mid istiraatiijiyad gaar u leh marka la eego ciidanka militariga ah ee Soomaaliya. dowladda Turkiga ayaana agabka ugu badan ee bandhigan qaybta ka soo gaarsiisay dowladda federaalka Soomaaliya sida gaadiidka dagaalka, hubka oo masaarida ugu deeqday iyo sidoo kale waxa qayb ka ah diyaaradaha nooca dagaalka ah ee hawada ee ka fuliya howlgallada dhinaca duqeymaha cirka ah oo ay ugu horeyso F-16 oo qaar ka mid ah dalalka Afrika wali uusan soo gaarin amaba aysan haysan, iyo Attack 129. dhammaan diyaaradahan waa kuwa ay soo saartay dowladda Turkiga. imikansa Turkiga waxay sii kordhisay taageeradeeda lixaadka leh ee militariga ah ee ay siinayso dowladda federaalka Soomaaliya. waxaase la rumaysan yahay in dowladda Turkiga ay waqtigan ay diyaar u tahay kobcinta ciidanka militariga Soomaaliya dib u gabashadooda sabab la xiriira in Turkiga ay muhiim ay u tahay amaba daneynayaan si joogistiisa geeska Afrika oo ay u arkaan in ay ku raagi karaan in ay taageerada ay siinayaan ciidanka Soomaaliyeed iyo dowladda dhexe Soomaaliya aysan xagran oo ay si toos ah u fuliyaan ballanqaadyada iyo heshiisyada kol hore dowladda ay la galeen. si kastaba ha ahaatee maalinta berri ah waxay noqon doontaa maalin si weyn ay bulshada Soomaaliyeed uga dhowrsugaan oo indhaha ayaana lagu wada hayn doonaa bandhigan oo qaar ka mid ah dalalka Afrika ee sida tooska faragelinta ugu haya Soomaaliyana u noqon doonta fariin toos ah oo u muujinaysa in ciidamada qaranka Soomaaliyeed ay dib u soo kabasho weyn sameeyeen, diyaarna u yihiin in qarankooda difaacaan, sidoo kalena aysan raali marnaba ka noqonaynin in la farageliyo siyaasadooda. waad ku mahadsantihiin ilaa gunaanadka muuqaalkan. haddii aad nala soo gaarteen saaxiibadeena qiimaha badanoo wararkan iyo wixii kale oo kusoo kordha muuqaaladeena kuwan xiga ayaan idinkula soo wadaagi doonaaye nabadgelyo.